banin doonaya waatahay kulan wacna asxaabteena Facebook waa Cabdifatax Ibraahim Cagayare oo mar kale toos idinkaga soo tabinaya warbixinadii ku saabsanaa doorashooyinka Kenya waxaan ku sugannahay xarunta Bomas halkan oo ay ka soo dhacayaan natiijooyinka doorashooyinka Kenya iyadoo guddiga doorashooyinkuna ay hadba ku dhawaaqayaan natiijooyinka hordhaca ah ee aan rasmiga ahayn doorashadan ku saabsan haddaba si aad arkaysaan qaar ka mid ah guddiga ayaa haatan waxay ku mashquulsan yihiin xaqiijinta warqadaha foomka loo yaqaan 34A kaas oo ah foomkii laga soo dirayay deegaanada ay codadka dadka ka dhiibteen goobaha codadka ka dhiibteen sidoo kale waxay xaqiijinayaan foomka kale ee loo yaqaano 34B taas oo iyana ah mid laga soo diray 290 ka deegaan ee Kenya ka kooban tahay ee waliba lagu saleeyay dhanka xildhibaanada marka halkan waxaa ku sugan dad tiro badan ilaa 100 qof oo wariyaal iyo goobjoogayaal caalami ah isku jira wariyaasha ku sugan Soomaali kaliya ma ahan caalami cadaan madow cid walba leeyihiin hadaba waxay noo soo gashay in aan waqtigiisii ka soo qaadano oo maanta aanu mar kale wajigiisa intuu isagoo Soomaali ku hadlay Maxamed Cabdi oo Aljazeera ka tirsan BBC-na muddo badan u soo shaqeynay Maxamed soo dhaw saaxiib maadsantahay Fatax muddo dheer baad maanta kadib maad Soomaali ku hadli doontaa doorashadan waa mid shanaad ee aad tabiso bal qaabka wax u socdaan markaad eegtid iyo doorashooyinka hore aad taban jirtay iyo midanba bal ka waran waa maadsantahay Fatax doorashadii natiijooyinkii ku meel gaarka ahaa ee marka hore aan iraahdo aan rasmiga ahayn ee marka hore la shaacinay waxa ka dhiman wax ka yar 1000 goobood oo laga codeeyay in ay soo gudbiyaan natiijooyinkii codadkii laga dhiibtay balse waxaad moodaa haddana in aad uga fog tahay xilligii natiijada la shaacin lahaa maxaa yeelay isqabsi iyo khilaaf ka yimid natiijadii la shaaciye awgeed hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay in lagu shubtay systemkii ama computerkii mataqaanaa ee computer systemkii lagu soo gudbinayay la jabsaday oo koox mataqaanaa khubara ah xagga computerada ay jabsadeen isla markaana ay waxay doonaan ku shubtaan tii iyada ahayd guddiga doorashooyinka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Chebukati waxa uu sheegay in aysan ogeyn in la jabsaday in kale taasna waxay dhalisay arrin aad iyo aad waxa kale oo hadlay guddiga xuquuqda aadanaha ee wadanka Kenya waxaana sheegay in meel 4 cod ay ka halowday ay systemka ugu jirto 475 cod inay ka halowday marka waxyaabo badan oo noocaas ah oo khilaaf dhalinayo yaa soo baxayo marka guddiga waxa ku qasbanaaday inuu dib u laabto oo natiijooyinkii la wada ansixiyay foomkii la wada saxiixay goobihii codadka laga dhiibtay loo laabto oo kadib markaa iyada ah intii la keena Nairobi tirada ku qoran la isu geeyo marka ka bacdi natiijada la shaaciyo marka fari kama qodnaan oran karaya waqti badan bay qaadan doontaa warunta fari kama qodna marka markii la fiiriyo sida ay natiijooyinka haatan u soo dhacayeen sida guddiga doorashada ay u soo bandhigayeen natiijooyinka hordhaca iyo mucaaradka oo hadlay ilaa ma qamalmood bay kula tagna qaadan doonto in natiijada rasmiga ah lagu dhawaaqo adigoo ku saleynaya taariikhdaadii hore ee aad soo tabintii wararka ku saabsan doorashooyinka Kenya wallahi horta doorashooyinka Kenya waagii hore maalin bay maqnaan jireen natiijooyinka waa intaan dimuqraadiyadda iyo loo gudbin axsaabta tirada badan laakiin laga soo bilaabo 1992 ilaa hadda doorasho aan la isku qabsan waxa jirta tii 2002 oo aqlabiyadda looga horeeyay Uhuru Kenyatta oo uga horeeyay Kibaki ay aad u tiro badnayd oo ay ahayd yani Moi iyo qabiilkiisa iyo inta kale ee Kenyaanka ah oo dhinac ka maray وحتى كيكويدي وكذا هورو كنياتا أنا نوعدين تامو يعني أنت كل ولا سوق بصدي سد عليها دو قدام بيسي ريلا ودينجا وسوتنا وحولا والد داعي تنولي والد داعي وحكتجرو الله أعلم لكن اللي ضجرت وحاويان وحلا جبرتي وأنتي هور الله قلت الله بقاضي ليرة هذي أن عشركي أن كبرنا تيهوري أن خروج سي ودنه إلا هي ضانية ما مقدان لكن
afartii sano ugu dambeeyay kharashaad aad u tiro badan maaliyad aad u tiro badan baa la geliyey systemkan hadda lagu codaynayo nus bilyan dollar baa ku baxday nus bilyanka dollar waxaa lagaga hortegayey in la isku qabsado natiijada iyadoo intaasoo kharashaa la galayba hadda bartiyada la taagan yahay marka xoogaa nasiib daraa ayaa jirtaan isleeyahay waatay marka maadaama aad tabinaysay tan iyo shalay tan iyo xalay haatanna meeshaad ku sugan tahay wararka aad tabinaysaan dhinaca ugu badan aljaziira ahaan ma wararka natiijooyinka dhexaad baan nahay xisbiga talada haya waan wareysanay xogayaha guud ee xisbiga Jubilee Party baan wareysanay saacad ka hor ama 2 saacadood ka hor codadka Raila baan qaadaynaa waxaan qaadaynaa mataqaana codadka guddiga doorashooyinka shacabkan wareysanayna goob walba oo aan wax ka maqalnana wariyaal baan u diraynaa hadda waxaa ku maqan maanta rabshadaha ka dhacayna Kisumu team baan u dirnay Mombasa team baan noo joogo oo wixii ka socda mataqaana noo soo sheegay halkan dhowr baan ku nahay marka anagu cidna uma janjeerno cidnana mataqaana isgaar ugu maxaglinayno doorashadana wax nooga jira ma jiraan kaliya waxa weeyaan in shacabka ina daawado oo adduunka ku kala firaarsan aan war rasmi ah oo tayo leh u geyno waa sida BBC doo kale iyo warbaahinta kale caalamka halkan ku sugan aad ilaa maadaama aad kambanigaaga sheegtay inaan keegi sheego waa sax marka maxamed markaan eegno qaabka ay ku soo socotay doorashada sida dadkii u codeynayeen meelo badan baad tagteen oo soo tabinayseen laftigiina aljaziira ahaan halkan waan joognaa jirtaan dad badan baana daawanayo dadka su'aalaha ugu badan ay isweydiinayaan waxay tahay goorta lagu dhawaaqi karo natiijada guddiga doorashooyinka wuxuu haystaa 7 maalmood laga soo bilaabo maalinta ku xigto maalinta doorashada dastuur ahaan dastuurka Kenya ay ku qoran tahay 7 maalmood gudahood xilliga uu doono hadduu doono saacadda ugu dambe ama ilbiriqsiga ugu dambeeya ayuu ku dhawaaqi karaya doorashooyinku marka waqti badan baa u harsan hase yeeshee qaar ka mid ah saraakiisha guddiga doorashooyinka oo la hadlayna waxay noo sheegayeen in 7 maalmood aan isla gaarayno ka hore ay doorashooyin natiijadooda ku dhawaaqi doonaan intaad doorasho tabinaysay ilaa iyo 5 jeer oo hore dad badan baa ku qaba maxamed inuu yar yahay moogtahay marka 5taas jeer wax ka duwan wixii aad arki jirtay sanadkan aad aragtay horta waxaa ku cusub arrintan aaladda mataqaana iyo farsamada casriga la isticmaalayo iyo teknolojiyadda yaa kan aad moodaa in culayska aad loo saaray برجي هراء وحياة كعنت لو ترين جرا عضتك هذا وحلو ترين يا كمبيوتر كي ريجستر كا أما متقنا بوجا يكوريهن بوجا لقفيرين جري هذا قفكم فرط على صار يا مجلس أسوب وذي مركا تكنولوجيا ده أي عاد وجدون ولا عصرية حسي شيء مركا أكتو دورشة كينيا ما أنت العضينا يهرتو wax dhib oo dhaca ma jiraan inta badan yaani laba qof oo leenkii ama mataqaana safkay ku jireen isku dilay waa la arkaya laakiin wax kale ma jiraan dad waxa weeyaan edad badan oo aad iyo aad u nabad jecel oo isdabada istaagayaan leenka waxa laga yaabaa inuu ka baxo goobta laga codeynayo oo wadooyinka mataqaana ay garab saftaan doorashadu habka ay u dhacdo maalinta doorashooyinka horta waa mid aad loo amaanay oo observerska marka ay qolooyinka korjoogayaasha marka ay sheegayaan ay aad ula dhacayaan ciladu waxay timid marka natiijada ugu horeysa la sheego ama hebel baa horeeya la yiraahdo markaas madaxa la isla galaa aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed cabdi kaas ahaa waxa uu la shaqeeyaa aljazeera BBC na waqti dheer buu ka soo shaqeyn jiray BBC Soomaali Swahili English waqtiga qaali waad ku mahadsan tahay maxamed waliba 5 daqiiqo oo ka badan aan jecelnahay karba ka warjeeda waa tahay wali waxaan ku suganahay xarunta Bomas of Kenya oo ah goobta ay ka soo dhacayaan natiijooyinka kama dambaysta doorashada Kenya iyadoo natiijooyinka hordhacahan ay tilmaamayaan haatan inuu horeeyo madaxweynaha haatan xilka haya Uhuru Kenyatta iyadoo madaxweyne ninka kula tartamayay xilkan Raila Odinga uu leeyahay natiijadan hordhaca ma ahan mid aan ku kalsoonaan karno gaashaankana uu daruuray hadaba guddiga doorashooyinka arintaasi ka hadlay oo gudoomiyahooda Wafula Chebukati waxa uu sheegay in ay arimaha eedaha ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka ay baarayaan oo ay rabaan in ay sida ay wax u jiraan sheegaan hadaba goobtaas ayuu ka dhici doonaa halka shirka jaraa'id halkaas ay soo fariisan doonaan oo ay gudoomiyaha iyo guddigiisaba kaga jawaabi doonaan su'aalaha ay wariyaashu weydiinayaan hadaba wariyaasha halkan ku sugan caalami oo kaliya
keliya ma ahan waxaa joogaan wariyaal kale oo localka ama maxalliga ka shaqeeya waxaa ka mid ah maxamed ciyaar diiriye oo ka tirsan tv-ga iyo idaacadda Star FM. Maxamed soo dhow markii buluginood wadataa ilaa shalay halkan baan kugu arkayay kolley qof walba hawl baa loo xil saaraa dabcan Bomas baad joogtay intaad Bomas joogtay maxaad ku aragtay cabdifatax aad baad u mahadsantahay intii Bomasan joognay waxyaabaha aan ku aragnay waxaa ka mid ahaa in shirarka kala gedisan ee guddiga IEBC iyaguna ay qabanayaan ama ay soo jeedinayaan bal waxyaabaha ugu waaweyn ee mar walba ka soo baxaya dhanka doorashooyinka si dadka iyaguna dhanka warbaahinta ama guud ahaanba wararka kala duwan ka sugayo ay iyaguna u siiyaan macluumaadka ku cusub oo mar walba ay soo gudbinayaan su'aalo fara badan baa xitaa inta badan la weydiiyo iyagu laftooda jawaabo qaar ay u helaan qaarkoodna ay dib isugu laabtaan balse jawaabo rasmi ah ay uga keenaan sidii kuwa maanta la weydiiyo kale ay ugu badnaayeen waxyaabaha u ka cabanaya Raila Odinga oo ku saabsanaa foomkan ama faylka iminka la raadinaya ama diiwaanka 34 ilaa iminka wali la daba taagan yahay hadda sida ku muuqato waxaa fadhiya qaar kamid ah dadkii officialska ah ama ka tirsanaa IEBC oo ama guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalkan Kenya oo iyagu laftooda wali raadin ugu jiray xaqiijin foomkaasi ama diiwaankaasi qaarkood way soo download gareeyeen hadda way wataan qaarna wali wuu u degayaa foomkaasi marka meelaha ku xusan waxaa kamid ah ismaamulada Kwale, Tana River, Lamu, Taita Taveta, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Isiolo, Kirinyaga, Muranga, Turkana, Samburu, Fahiga, Siaya, Homa Bay, Kisii, Nyamira iyo county kale wali u dhiman oo laftigooda marka ay haysaan marka si fiican baad u sharaxday Maxamed marka maadaama aad la hadashaan dad Soomaali ah gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo Soomaaliya oo dhanba bal ka waran dadka siday u soo qaabilayaan wararka ku saabsan doorashooyinka aad iyo aad aragti badan bay u hayaan maadaama IEBC sharcigeeda iminka uu ka duwan yahay sidii markii hore ay ahayd waxyaabo iyagu aanay shaacin aan la shaacin karin haddana dadku mar walba waxay dhagta u taagayaan shirarka kala duwan ee qabanayaan guddiga doorashooyinka haddii ay yihiin kuwa heer deegaan ama kuwa sare sida hadda xaruntan ku sugannahay oo kale oo gudoomiyahoodiiba uu joogo Wafula Chebukati waxyaabaha ka soo baxa marka waxaad moodaa inay ka xaqiiqo badan yihiin kuwa kale dadku ay isla dhex marayaan ama meelaha qaarkood lagu arkayo qaar marka dadka la yiraahdo hebel baa horeeyay iyo waxyaabaha la midka waxay ku leeyihiin xarunta dhex mar lagu sheegay ama ma lagu qoray bogoga IEBC ay leeyihiin iyo waxyaabaha la midka marka aad bay dadku uga dhursugayaan oo u fiirinayaan mar walba bal waxa xarunta ka soo bixi kara ama xarunta dadka ku sugan waxyaabaha ay leeyihiin sida dadkan oo kale officialska iyagu laftigooda kamid waxyaabaha rasmiga ah marka ka soo baxa waxay qayb ka tahay waxyaabaha inta badan dadku ay ku xaqiiqsanayaan IEBC mar walba waxaad moodaa wararka Soomaaliga dadka dhageysta marka idaacadii rabtaba ha ahaato ama meesha rabtaha ka yimaadaan in mar walba ay dhagta u taagayaan bal wixii ku soo kordhay dhanka doorashada muhiimadda ugu weyn marka dadku ay u dhag taagayaan mar walba waxay tahay xagee wax ka dhaceynayo xagee kala marayaan dhanka doorashada iyo waxyaabihii marka ugu hadal haynta badnaa taniya maanta ee Soomaalida markaad eegto waxaa kamid ahaa diidmadii natiijada uu aqbali waayay hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo si aad wali ay soo dhex marayaan cabsi badan laga muujinayo walow haddana ay jiraan goobo ay wax ka dhaceen inkastoo aanay saas u badnayn haddana waxaad moodaa in inta badan cabsi ay ka muujinayaan dadka goobahaas ay wax ka dhacayaan oo isleeyihiin muxuu dalku noqon doonaa maadaama markii hore doorashada ka horba ay cabsi jirtay in hogaamiyaasha laftigooda dhinaca mucaaradka ka soo jeedo hadallo kulul ay marka hore isweydaarsadeen waxaa kamid ahaa marka isaguna ninka lagu magacaabo Justin Mudama oo senatorka ahaa Machakos oo horey u sheegay inay xiri doonaan wadada u dhaxaysa Mombasa iyo Nairobi Nakuru iyo Mombasa haddii marka la isku dayo in codadka lagu shubto waata marka walina natiijadii hordhacayd baa socota mid rasmi ah weli ma aanay soo bixin marka Maxamedow maadaama aad gobolka waqooyi bari aad xog u saartaan oo wariyaal badan idin joogaan dadka sidee u arkaan in codka u soo baxaan marka horeba cabdifatax doorashadan way ka duwaneedba kuwii hore Soomaalida aad inta badan waxa loo dhigi jiray uma soo baxaan codadku waa dad daala markay leemanka galaan asaate hadda way ka duwaneed dhan marka waqooyi bari ahaan loo fiiriyo aad baa liisu hayay Mandero kale marka la eego laba xisbi oo haddana Jubilee wada taageersan ama madaxweynaha labadaba codadka u ridaya isayay ilaa iminka goor dhaweedoon fiirinaynay wali waa la isku dhagan yahay oo tirintu ay socoto wali aad baa la isugu dhaw yahay aad baa loo soo baxay marka Cabdifatax markaad eegta Garissa oo kale aad baa la isugu hayay iyaduna aad baa loo soo baxay oo leemanka loo galay xataa marka qaar waxaad arkaysaa dad waayeela qaarkood indhala yahay qaarkood cagaha ay leeyihiin ama curyaan ay yihiin oo dad socon kara ay yihiin haddana leeman ku jira oo u socday inay codayaan baad arkaysaa taa marka waxay ku tusinaysaa sidii hore inay ka bedelanto oo aad loo soo baxay islii oo kale markaad eegto ama Soomaalida Nairobi oo kale waxa u badan yihiin dadka aad loo yiraahdo dad soo baxa ma aha ama dadka inta badan aan aad u soo bixin oo codadkooda aan dhiibanin hasaatee waxay ahaayeen maalintii hore shalay oo codadka la dhiibanayay xiliyadii horenu tagnay 6dii ilaa wixii ka horeeyay dadka ugu horeeyo laymanka ku jira qaar markaa waneysare waxay noo sheegeen in ilaa 2dii habeenimo ay meesha ku sugnaayeen si laynkooda aan looga hormarin oo ay u buuxiyaan oo codadkooda u dhiibtaan way ka gadisan tahay marka Cabdifatax oo aad bay u soo baxeen dadka markan sidii hore si ka gadisan oo ka badan bay u soo baxeen kulley wax badan bay waxay ka barteen dadka kale ee Kenyaanka ah ee
iyagu intay soo kala lahaan weliba mararka qaar ay yimaadaan ilaa iyo 3 aroornimo oo ay leenka ku jiraan ilaa iyo 6 maqribnimo ama ka badan marka weli waxaan ku sugannahay barta Bomas of Kenya halkan oo ah goobta ay ka soo dhacayaan natiijooyinka iyadoo dhinaca markaad eegtid maxamed aan ku soo laaban doonaa dhinaca markaad eegtid ay saraakiisha fadhiyaan oo ay baarayaan foomamkii 34A iyo 34B kuwaas oo ay doonayaan bal inay isu barbar dhigaan wixii soo gaaray iyo wixii markii hore soo gaaray iyo haatan sida ay tahay maadaama xisbiga mucaaradka Kenya ay arintaasi su'aal geliyeen oo ay gaashaanka u daruureenba in ay aqbalaan natiijada hordhaca ah ee soo baxaysay tan iyo shalay markii ay xirmeen goobaha codbixinta haddaba dhinaca kasta markaad eegtid qof kasta uu mashquulsan yahay wariyaashii waxay ku mashquulsan yihiin in ay warbixinada u tabiyaan dadka dhageystayaasha ama daawadayaasha gaarka waa iyaga ku xiran dhanka kale waxaa jooga dad goobjoogayaal caalami ah oo hadda sidaad arkaysaan waxaan waa kaamarooyinkii ay isticmaalayeen tviyada kala duwan idaacadaha haddii ay tahay caalami haddii ay tahay kuwa gudaha haddii ay tahay kuwa qaaradan gudaheeda Afrika oo kale waa meesha loo asteeyay in wariyaashu ay fariistaan shaashada ka sareysana waa shaashada ay ka soo dhacayaan natiijooyinka hordhaca ee ka imanaya deegaanada ay codbixintu ka dhacday marka dadkan aad arkaysaan meesha jooga ee fadhiya ma ahan dad u yimid inay halkan u soo dalxiis tagaan nin walba tiisa qoorta ugu jirto nin walba waxaa laga sugayaa in uu warbixin gaarsiiyo halka ay warbixintooda hadba laga sugayo dhinacan kale waxaan aragnaa in wariyaashii BBC-da qaybta af Ingiriisiga ay tabinayaan warar toos ah oo dee wataasaan sheegaya nin walba kambanigiisa iyo shirkadiisii waa ku dhaganayay luqadii uu la hadlayay haddii ay Soomaali tahay haddii ay Soomaali tahay haddii ay English tahay iyo haddii ay tahay wax kalaba annaguna waxaan aad ugu faraxsanahay in ilaa iyo in ka badan 800 oo qof ay haatan si toos ah u daawanayaan barnaamijkan oo ay jecel yihiin in ay weliba ra'yigooda kaga dhiibtaan inagoo dib ka eegi doona hadba ra'yiga dadweynaha sida uu yahay marka haddii aanu eegno sida ay weli xaaladdu u socoto waa si aad u qurux badan welina waxaan rajaynaynaa oo aan sugaynaa oo halkan u fadhinaa waxa weeyaan in ay yimaadaan guddiga doorashooyinka ay mar kale soo laabtaan oo ay bal ka hadlaan xogtii ugu dambeysay ee ku soo korortay doorashada maadaama ay ahayd wax la sugayo oo dadku dhan ay door bidayaan inay maqlaan annaguna waxaan jecelnahay inaan noqono idaacadda ugu horreysa ee si toos idinkugu soo tabisa wararka ku saabsan doorashooyinkan maxamed haddii aan kusoo laabto maxamed inkastoo waqtigii intiisa badnaa aan xoogaa kaa qaadanay sidaan ku balnay aanay ahayn markaa fiirisid ra'yiga dadka idin soo gaarayo ee Soomaalida ah ee idaacadiina soo wacay la soo xiriiraya bal ka waran sidee u arkaan inay codeeyaan marka horeba oo ra'yiga codkooda ay dhiibtaan oo cid ay doonayaan inay codeeyaan cabditax waa santahay waxyaabaha ugu badan ee ugu muhiimsan oo inta badan dadku ay sheegayaan qof walba inuu codkiisa dhiibto farxad bay u tahay isagoo markaa ku doodayo in qaarkood ay sameynayaan isbedel qaarna xisbiga ay taageersiin iyaguna ay u codayaan ama shakhsiga markaa ay codkooda la doonayaan taa marka waxay ku tusinaysaa qofku siduu ugu faraxsan yahay inuu marka horeba soo baxo sababtoo ah dee qofka hadduusan doorashada rabin aad uma soo baxo dad qof iyo dhif aan badnayn baad arkaysaayo markaad dhahdo maxaad usoo bixi weyday kule qofna waxba iima qabanaya iyo waxyaabo lamid ah oo markaa isagu laftiisa uu ku doodayo hase haatee qof walba qofka ugu yar wuxuu leeyahay waxaan hay isbedel doon si markaa aan u helo qof kii hore iiga wanaagsan ama kan hadda ii joogo aan u soo ceshado asagana marka farxad badan bay ka muujinayaan qof walba inuu codkiisa dhiibto ama kaarka xaqa uu u leeyahay kuurihiisa waxa loo yaqaano ama kaarka codeynta ah in isaguna uu ku dhiibto codkiisa marka way ka muhiimsan tahay doorashooyinkii hore markaad fiiriso xataa maanta markuu hadlayay gudoomiyaha mucaarad ama hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waa kii sheegay inay tahay doorasho taariikhi ah oo markaa Kenya wali aan horey uga dhicin inta badan hogaamiyaasha dhinacyada kale laga soo doorto qof walba sidaas oo kale ayuu asaguna u soo dhaweynaya doorashadan waxaa kamid ah gudoomiyaha hadda talada haya ee Nairobi Dr. Evans Kidero isaguna maanta maruu hadlayay sidaas oo kale u soo dhaweeyay hanaankii doorashada ay u dhacday dadku say uga qayb qaateen marka sida hogaamiyaasha ay ula dhacsan yihiin iyo sida ay bulshada ula dhacsan yihiin ra'yi ahaan markaad aragto intaba qof walba wuu ku faraxsan yahay oo qof hamigiisa uu degan yahay oo isla tan hadda waxay tahay doorashadii ugu wanaagsaneed ee Kenya ka dhacda gaar ahaan marka laga hadlayo qaabka loo codeeyay iyo qalabka lagu codeeyay iyo guud ahaanba sida iminka ay u socoto shaqada si guud marka loo tagayo inkastoo dhanka mucaaradka natiijada ay qaadaceen aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cibaar diire ayuu markan waad laaban kartaa saaxiib wallah kursiga tiikada mahadsan tahay waa tahay wali waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii tooska ah ayaan idinkaga soo tabinaynay xarunta ay ku soo dhacayaan natiijooyinka kama dambaysta ee doorashadii Kenya ka dhacday maalintii shalay ahayd sida aad maqlaysaana
qof kasta waxa uu gudbinaya xogtii ugu dambeysay oo ku saabsan doorashadan iyadoo sida dareemaysaan BBC ay tahay meesha ugu badan ee xogta ugu badan ee doorashadan ku saabsan aad ka helaysaan haddii ay tahay radioga haddii ay tahay barta internetka ee Facebooka haddii ay tahay TV-ga inagoo hadba isku dayna in aan dhageystayaasheeda iyo daawadayaasheeda maadaama Facebook haatan aad kusoo biirteen aan u soo gudbino xogtii ugu dambeysay ee doorashada marka guud ahaan markaan eegno weli tirintii codadka ayaa socota waxaan arkaysaan in halkan ay tahay meesha rasmiga ah ee ay ka imanayaan ay ka soo dhacayaan natiijooyinka kama dambaysta ah haatanna Xuseen oo cameramanka ah kamarada kor u qaaday oo arkaysaan in shaqaalaha guddiga doorashooyinka Kenya ee IEBC loo soo gaabiyo ay ku mashquulsan yihiin in ay bal waxyaabaha soo dhacay natiijooyinka soo dhacaya ay eegayaan marka Xuseen laftigiisa maadaama uu wax badan ku mashquulsanaa arintan markan waxaan jeclahay inaan fursad siiyo Xuseen bal soo dhawow waqti badan baan halkan ku qaadanay waa arkaa xoogaa mashquul iyo wax ka muuqanaya hurdo waa la gaari doonaa laakiin doorashadu ay dhowdahay bal soo dhawow marka halkan imo waxaan ku weydiiyay bal ka waran daalmi dareemaysa xoogaa ما رنا هنتي عفتح رنا هنتي أدي هذا وفرح حسنا إن المدرسة أنا كشقي ومانتا لقى صوب الله وساكا الرني مدي أفرتي الرني مثلا ومعنا إلى حد تاني إن سي أو عاونو إن دقيستياش إن الله تفرس مالية BBC ده طبعا هذه تاريخ كوتاي وهذا صوت في دورشة دي لابد يكون يتصدق تونكا حكى تاريخ ذاك الجليس وصح ومترنا رنا هنتي وتاريخ وين إن بوماس إن كسرت في دورشة يعني سنة كان لابد يكون dabada Kenya dhageystayaasha ama daawadayaasha laanta afka Soomaaliga BBC da waxaan ugu barashaareynaya dhamaan inta ku xiran baraha bulshada laanta afka Soomaaliga BBC da inaan meeshii shaqadaadii ahayd waa meeshii shaqadeedii ahayd waa shaqadeedii marka waa bartii la isugu imaan lahaa marka waa aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan wararka halkan marka idaacada joogno marka meeshan ka dhahno halka nagala socotaan waa BBC Soomaali raygiina ka soo dhiibta ya wax walba isku xiran yihiin dabcan hadda marka waxa way runta madasha nagala socotiin waa baraha bulshada ee laanta afka Soomaaliga ee BBC da marka waxaan rabnaa sida TV BBC Somali TV sida idaacada TV inaysan sugin dadka idaacada 9 habeenimo in haduu soo firiiso gudoomiyaha guddiga doorashada ay halkan uga bogan karaan wax walba war ku saabsan shirka jiraa'id ama wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan doorashadan ama natiijada ugu dambeysay waa sababta halkan aan u imaaday waa sababta halkan aan u joogo waa sababta marka waa sax marka aad ugu faraxsanahay aad iyo aad Xuseen aad u mahadsan yahay waa inta badan idaacadaha iyo shaashada lagama arko wuxuu ku mashquulsan yahay in uu bal isku aadiyo oo uu soo saaro barnaamij qurux badan oo dhanka Facebook ama Twitterka ama Instagramka ama barnaamijyada social media ama baraha bulshada ku wada xiriirto si dadka aanay u suura galin in ay ama idaacad helaan ama TV helaan ay si fudud ku helaan warbixinada ku saabsan deegaanada ay Soomaalidu degan yihiin iyo waliba xogta caalamka oo dhan ilaa anagu marba xoog ma saarno kaliya waxa ka dhacaya deegaanada Soomaalida waxaanu eegnaa waxyaabaha ka dhacaya caalamka oo dhan taasina mid aan kaga duwanahay idaacadaha kale marka wali waxa barnaamijkii baan ku guda jirnaa inkastoo haatan aad moodaysid in waqtigii aanu uu sii gabagaba yahay oo laga yaabo in daqiiqado kadib ay guddiga doorashooyinka halkaas soo fariistaan oo xog dheeraad ah oo ku saabsan doorashooyinka ay bixiyaan marka waxaan aad kaga mahadcelinaynaa daawadayaasheeda iyo dhageystayaasheeda aadka u qiimaha badan ee aan arkayno in boqolaal ay kor u dhaafeen oo waliba ay ku jiraan dad maaragtay inta badan aad noola soo xiriiro oo haddii aan magac sheegi lahayn aanay suuragal inoo noqonin ilaa in ka badan 800 oo qof marka waxaan jeclaan lahaa idinkuna ra'yigiina soo dhiibataan oo aad wali qaabka aad nagula xiriireysaan inoo soo gudbisaan حتى هذه صورة قلتها إن دراسة قد بسان سؤالها دونيسان إن أدوديسان قدية دورشوين ككينيا وهل كان إيمان دونا ومر والبا ددوينها أسو قدين دونا قابك إن أسر دعيان نتيجوين كي قدام بيجي إن مركا وحبايا هذا الكين كوبا ذنين عن قبل أيام مرينا مركان intaan dib u kulmi doono waa Cabdifatax Ibraahim Cagayare iyo Xuseen Maxamed oo barnaamijkan tooska ee BBC Facebook idin tabinayay intaan dib u kulmi doono haduu ay beedmo sidaas iyo nabadgelyo